bismillahi raxmaani raxiim akhyaari kusoo dhawaada shabakadan saadaq tutorials gaar ahaan kooraskeenii aan ku baraninay luuqadan java. tutorialkeena ama cashirkeena maanta waxaan rabnaa inaan ku koofalgarayno maxaa la dhahaa java. waxaad u malaysaa in aan si dhibliya usii gudagalayno maxay kooraskeenii ama aan xooga ku saarayno maxay waxa uu yahay maxay goolkeena aan rabna inaan barano taasoo ah java. so waxaan ka hadli doonaa maantay maxaa la dhahaa java. sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka hadalno maxay how java is a cross platform, qaabka java ay u tahay maxay cross platform ay u noqotay. cross platform means qaabka u suurtagelisay java inay ku rangarowdo ama ku kor shaqeyso any system. sida java waxay ku kor shaqeyn kartaa windows, waxay ku kor shaqeysaa mac, waxay ku kor shaqeysaa linux, waxay ku kor shaqeysaa even xitaa mobileski, waxay ku kor shaqeysaa telefishiniska. marka qaabka java u suurtagelisay inay ku kor shaqeyso maxay different platforms ay u noqotay cross platform waa ka hadli doonaa. waxaan kaloo rabnaa inaan ka hadalno waxa la dhaho java compile and run process. sida ogtahay programka java markaa qortid waxaa jira yacni processes uu maro iyadoo laga soo bilaabayo marka koowaad programkaaga inaad compile dhahdid, inaad test garaysid in programkaaga uu saxan yahay, uusan lahayn wax errorisa, inaad u isticmaasho yacni keywordski ama syntaxki luqadan ay lahayd sida loogu talagalay. waxaa la dhahaa compile step la ilaa laga gaaro the last step oo ah run process, oo ah xaalad aad helaysay yani haddii programkaaga uusan ku jirin wax errora outputkii aad filaysay. marka waxaa jira steps ama processes u dhexeeya compile oo ah xaaladii koowaad ilaa run process oo ah xaaladii u dambeysay. process u dhexeeya in java markii la joogo waxaan rabnaa iyadana inaan ka sheekeyno oo cashirkan uga hadalno. sidaas lamid marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la dhaho main benefits of java, faa'iidada ugu weyn ay leedahay luqadan java iyadana waan ka hadli doonaa. aan ku bilowno marka goolkeena koowaad oo ah what is a java, waa maxay java. java waxaa la dhahaa java saan hore idinkugu sheegayba is a cross platform programming language. waa programming language runtii cross platform ah. cross platformna waa kasoo hadalnay means java waxay ku kor shaqeyn kartaa any system, ma jiro system gooni u ah. can run java programmeska java waxaad ku ran gareyn kartaa windows, linux oo ah operating system ka duwan windows, mac iyo more. intaasoo system ayaad ku kor shaqeyn kartaa ama ay ku kor shaqeyn karaa programka java. sidaa daraadeed java waa cross platform language. java codeka java xilligan la joogo wuxuu ku rangareysmayaa maxay billions of device, intaas oo device, mobiles, televisions, diyaarada hadii noqon lahayd, maraakiib, computers, waxyaalahaas oo dhan wuu ku kor shaqeeyaa. aan u imaano goolkeena labaad oo ah how java is a cross platform, qaabka java ay u noqotay maxay cross platform ama ay uga madax banaan tahay yacni operating system gooni u ah. marka waxaan rabnaa inaan mawduucan uga hadalno maxay java qaabka u noqotay cross platform, qaabka u suurtagelisay inay ku rangarowdo system kasta. marka koowaad stepka koowaad oo u suurtagelisay java inay ku rangarowdo any operating system ama any system waxa weeyaan si aad u qoratid ama aad marka koowaad stepka koowaad oo lagaga baahan yahay si aad u qortid java program waxa waaye marka koowaad write codekaagii inaad ku qoratid maxay in a text file means fileska way kala baxaan. waxaa jira video file, waxaa jira image file. so codeka java waxaa laga rabaa maxay inaad ku qortid text file, ma ahan image file, video file. waxaa ku qoraysaa text file ama file loogu talagalay in lagu qoro textiska. marka ku qoratid text file waxaa u baahan tahay filekaagii inaad save garaysid oo aad ku save garaysid maxay for example oo kale file aad qortay filekaagi waxaa u baxsatay magaca la dhaho x. markaad save garaysay x waxaa u baahan tahay inaad raacsiisid maxay .java. .javana waxaa la dhahaa waa extension any operating system kastana marka
different files ka wuxuu ku aqoonsadaa different extensions. For example kale Windows oo kale wixii images ah waxay u leeyihiin extensions sida JPG, PNG. marka sidaas la mid ah operating system ka markuu arko .java file ay ugu dambayso wuxuu aqoonsanayaa inuu yahay maxay filekan Java file. Step labaad waxa waaye filekii markaa save garaysatay waxa u baahan tahay filekaaga inaad compile dhahdid. compile shaqooyinka uu qabto waxa kamid ah marka koowaad koodkaaga inuu check gareeyo inuu ka kooban yahay wax error means hadii aad u isticmaashid si qaldan syntax ka leedahay luqadan waxa dabcan waxa jira error ana arki doonaa error different errors ka iyo waxyaalaha jira. markaad dhahayd koodkaaga compile markaad dhahdid waxaad heli doontaa output ah in lagu abuuro a new file cusub in lagu abuuro. filekaas magaciisa iyo locationkiisa waxay iskala siman yihiin maxay text filekii aad qoratay oo ah .java laakiin waxay ku kala duwan yihiin extension. filekan la abuuri doono as output ahaan extensionkiisa waxaa la dhahaa waa .class file. waxaan oo dhan practice oo arki doonaa markii lagu abuuro .class file waxa ogaataa .class filekaas la abuuray waxaa la dhahaa waa bytecode na waxaa la dhahaa waa machine language. maadaama horey aan uga soo sheekeynay in Java ay tahay high level language computerkana uusan fahmin high level language waxaad u baahan tahay koodkii aad qortay in loo bedelo maxay converting waxaan ka soo sheekeynay waxa loo converting to machine language. koodkii aad qortay waxa u baahan tahay inaad u bedeshid maxay machine language. sida daraaddeed marka koodka marka compile aad waxa lagu abuuri doonaa file cusub oo wata .class filekaas wuxuu ka kooban yahay bytecode ama machine language. waa koodkaagii Java aad ku qoratay oo loo bedelay machine language ama bytecode na waxaa la dhahaa waa machine readable. waa kood uu akhrin karo machine ama computerka. intaas ka gadaal .class fileka ama bytecode fileka wuxuu ku ran garaysmaa system walba ku ran garaysmaa laakiin waxa jira hal shuruud systemkaagu inuu ku jiro maxay wax la dhaho Java virtual machine oo ah free soo degsan kartid aanad ku shuban kartidna an operating system. sida daraaddeed marka waxaan dhihi karnaa Java waxa u suurtageliyay inuu noqdo cross platform waa filekaaga oo loo bedelayo .class file taas u suurtagelisay. marka .class file filekaas .class u dambeeyo waxaa ran gareeya JVM. waxaan dhihi karnaa it is interpreted waa la turjumaa means waxaa loo akhriyaa line by line. anu imaano goolkeeni kale oo ahaa inaan ka sheekeyno Java compile and run processka uu maro programka Java ilaa laga soo bilaabo markii compile la dhaho ilaa markii outputkaaga uu ku soo baxo oo la ran gareeyo programkaaga. waa kana processka uu maro waxa uu horeeyay marka koowaad inaad qoratid Java code aad ku qoratid text file oo u dambeeyo .java kadib in koodkaaga inaad dhahdid compile adoo isticmaalaya Java compiler. dan Java compiler koodkaaga wuxuu u bedelayaa maxay Java bytecode ama file ay u dambayso .class filekana waxa uu soo sheegnay bytecode na means waa machine readable waxa akhrin kara computerka. kadib bytecode-kaaga waxaa qaban doona Java virtual machine kaasoo ku samayn doona maxay saan hor usoo sheegnayba interpretation ama inuu turjumo oo u fiiriyo line by line kadibna inuu qabto waxa uu koodkaagu amrayo in la qabto. for example oo kale haddii koodkaagu dhahayo hala soo bandhigo hello world wuxuu samayn doonaa inuu soo bandhigo hello world. haddii aan la barbar dhigno marka processkan luuqad la dhaho C++. luuqada C++ ma ahan cross platform sida Java. waxaan rabnaa ayadana processka compile and run processkeeda inaan aragno C++. okay waa kana marka ayada wixii inta la maro C++ sababta aysan u ahayn cross platform ku sheegay marka waxa u baahan tahay inaad qoratid C++ code adoo ku qoranayo text file sida Java kale laakiin extension ah .cpp waxa loo soo gaabiyay .c++
anything oo u dambayso .cpp computerku wuxuu u yaqaanaa maxay C++ code. sidaa daraadeed waxaa isticmaalaysaa codekana waxaa dhahaysaa compile adoo isticmaalaya C++ compiler ay leedahay luqadan C++. kadib compilerkan wuxuu u bedeli doonaa codekaaga, wuxuu u bedeli doonaa executable code. executable codeka marka way kala duwan yihiin. operating system kasta wuxuu leeyahay maxay executable code oo wata extension gooniya. extensions waa waxa operating systems-ka ay ku aqoonsadaan fileska. for example kale Windows-ka kale executable codeska waxay u leeyihiin extension la dhaho .exe. marka meeshaan ma jirto .class file wax loo bedelayo directly waxa la sameyn doonaa codeka waxa loo bedeli doonaa executable code. for example kale kanoo kale waa Windows-ka executable code wuxuu u leeyahay extension la dhaho .exe. Mac wuu ka duwan yahay, Linux wuu ka duwan yahay. marka waxaa soo bixi doona output-kii u dambeeyay oo la dhaho haddii programka uu dhahay hello world waxaa loo soo bandhigi doonaa hello world. waxaan ka hadli doonaa wax la dhaho main benefit of Java. faa'iidada ugu weyn ay leedahay luqadan Java. faa'iidada ugu weyn luqadan Java ay leedahay waa la iska fahmi karaa. waxaa la dhahaa waa write once, hal mar qor, run anywhere, meel kasta ku run karay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. tutorialkeena maantana intaas ayuu ku egyahay. kulanti wacan until the next lesson. Assalamu alaikum warahmatullah.